reer Somaliland horta maanta aad bay u xanaaqsan yihiin sababtaasna waxaa keentay waxay taagan yihiin reer xamarkii iyo heesaa noogu fasiray 30 sano ayaa heesku karbaashayni horta 30 sano oo na karbaashaysiin waxaa isdhiina waa walaalihiina idinka xanaaqsan iskaga dulqaata laakiin halkii hees ugu dambeysay waxay ahayd hees aad amxaare iyo balaayo aad la gashay annagana amxaare iyo aragti anaga dhaxis walaalayaalo ma fahanteen sababta keentay wax waaye haddii walaalkaaga maanta oo dhan uu ku caayo waa walaalkaaga laakiin bahasho hadduu uu shisheeye kuu soo wato dee kaas walaalku ma noqonayo sababta taas waaye midda kale reer xamarka uqdad ma yaqaaniin markii aad leedihiin reer xamarka uqdad haddii yaqaanaa 30 sano oo heesaha nagu karbaashaysiin oo aan xiraysiin heesta xataa haddaad dhahdeen reer xamarka ma fahmin dadka inta idin yimaada dhalinyarada ee aa xirxiri jirteen anaga wax ma idin dhihi jirin sababtoo still waxaa dhihin walaalihiina waa laakiin maalinta Ethiopia meesha keenteen iyo shisheeye aniga waxaan go'aan ku gaarnay farta qortiin inaa idila qorno anaga uqdad ma naqaan sax waay laakiin ficil aan leenahay markaan nahay reer xamar sababta asaas u leenahay wax kale ma ahan adika uqdad baa dil keenaba hooyadeed iyo aabeed baa idinka waay because 30 sano ka hor dad dhinteena wadatiin dhowsiin dadkaasana laga dilay meesha anaga milyan naga dhimatay 30 sano kadib oo ilaa haddana aan dhaheen Allah u naxariisto hore la aan sii socon qof inta hees ma wax u tarto waa su'aasha maya walaalayaal istijiya gabadhan walaasheena oo Soomaali joogtana waxa la yiri waa la soo dhaweeyay dee dumaashi ahaan sidii laga rabo waa la soo dhaweeyay showguna dee waa business kale dadka shacabkan inta la soo qasbo lama keenayo goobta showga gabadhaas waxa waaye dumaashideen waa dumaashi ahaan oo soo dhaweyn because hadaan dumaashi ahaan u soo dhaweyn lahayn sida adiga asameysiin elboorka ku xir lahayn madaarka macnaha saas oo xafaantiin madaarka aa lagu xir lahaa laakiin lama xirin waa la soo dhaweeyay wadakeeda waxa la yiri dumaashi ku soo dhaw laakiin shilin meeshan ka qaadmaysid sababtoo shilinka shacabkaas kale shacabkuna iyaga go'aan iska ciyaal xamarna waxa uqdad ma yaqaanaan laakiin ficil leeyihiin because anaga doofaaramin doofaarka ficil aan loo cadaaba 30 sano adiga la fikirkiin damiir ma leeyihiin 30 sano heesadaan ugu karbaashayseen oo idin dul qaadanayni adigu iska sii socaysiin macnaha adduunka dulqaadka adduunka wareer muqdisho dusheeda taala isku xishooda walaalayaal ceeb waay dad walaalaha leeyahay xumaanta ma fiicno anigoo ku hadlayo afka ummadda Soomaaliyeed gaaraan reer koonfurka adduunku necabtiin anaga macnaha jaceelkiina intaan ka badan macnaha maxaa ku sameyn kara maxaa idin sameyn karnaa walaalayaal waa idin qaboojin waa idin qalajin waa idin warni wax ma arkaysiin intaas wanaag waa arki weyseen hal gabaro xaggeeda ka imaatay oo shoogle laga kansalay asaana dhan u cabaadaysiin meesha anaga dhalinyarteen maalin walba xiri jirteen oo still idin wadan walaaltinimada bal sida u kala damiir iyo dadnimo fiican bal fiiriya marka committee daartiin kun nafis caadi waa walaalaheenatiin bye bye